سورة الانشقاق waxay ka mid tahay suuradihii aan soo sheegnay xadiidkii hore aynu ku soo sheegnay suuratu al-buruj markaan soo maraynay ida shamsu kuwirat ayaan ku soo sheegnay in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri ruuxii doonaya inuu qiyaamadii indhihiisa ku arko suuradahan akhriyo marka إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة عزي مركم التهي قيامة دي مشاهد دي قار كم إذا الصفين أيام التلمامي مركم وحيكو بالله بنيسا اسبدل دا كل عيا كون كقيبة كم إذا هي السيدة وحنا قندونا مركي قيامة التماد سيدة سيكو بالله بنيسا dadku siday kala noqon doonaan iyo qaabka loola mucaamaloon doono say u kala duwan tahay ayay ka hadli doontaa iyo meeshay ku kala dambeyn doonaan waxay akhiiran lagaga hadli doonaa suuradu ka hadlaysaa oo ilaahay ku dhaaran doona makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah ibni aadamka iyo maraaxiisha kala gedisan uu mari doono ilaa ama naar uu ku dhamaado oo isbedelkaas u socdo xaaladba xaalad say ugu dhiibayso uu godka ku dambeeyo ama dhanka kale sidii xaaladba xaal ugu dhiibayso uu jannada ku dambeeyo akhiirana soo celintii nolosha dambe in la taqriiriyo iyo dadka muuminiinta waxa Ilaahay agtiisa ku leeyihiin ay suurada lagu gabagabeynaya wuxuu Alle yiri tabaaraka wa tacaala marka bismillaahir rahmaanir rahiim إذا قرت السماء السمدي انشقت أي دلدلاعضو وأي كلا دنبلنتو وأذنت أي مقشو لربها ربك أي مقشو أمر كي سيشو وحقت لغو حقسيو إن إلهي أمر كي سيشي ولغو تشتسيي ولغو قرسيي ولغو حقسيي وإذا قرت الأرض دولكي مدة لتاغو يعني دولكي لفيديو أو لتاغو وفيدين تاغيدا أو ميل هو صلاحين ميل كرونارهين والسمن وألقت أي صوتور توسور ريدو دولكي ما فيها وحي قده هذا كتشري وتخلت أي اسماريسو وحي قده هذا كتشري أي اسكماريسو اسكفاروقسو وأذنت أي مقشو دولكينا لربها ربك أي مقشو يوركي سيشو يا أمركيس وحقت لغو تشيتسيو لغو قرسيو أرنكا يساقا انتا سيمركا لعدها لاقى الإنسان كدحه هو إنسان كي مركا وحو لكل مي وحو صوشا قيستي اسبدل هذا دعاية كم انتهي سمدو او دلدل عدا وانصو مرني إني سمدو تشلعي دونتو دلدلعنا كو إيمان دونه ملائكتنا كسو دقي دونتو كا إيمان دونتو سيداسو معنا marka samadii baa dildilacday rabbigeed bay maqashay oo dhageysatay oo Allah amarkiisa qaadatay way macna garbayna u leedahay in Ilaahay amarkeeda qaadato amarkiisa inay qaadato waa arin lagu garsiiyay arin lagu la yaabo ma aha maxay Ilaahay tabaaraka wa tacaala wal qawiyul jabbar wax amarkiisa la diidi karo ma aha wax amarkiisa ay hor istaagi kartana ma aha inay amarkiisa qaadatay oo ay maqashay waa lagu garsiiyay waa lagu jidsiiyay dhulkiina sidoo kaleeto markii la fidiyo oo la simo oo laaqal insaanu kadxahu ibni aadamkii wixii uu adduunka ku soo rafaaday iyo wuxuu ka soo shaqeeyay marka uu hayaaway طيب inay jawaabtu sidaa tahayna waxa laga qaadanaya aayadahan ka dambeeya ya ayuhal insaanu innaka kaadihun ila rabbika kadhan ba macnaha tilmaamay inta kadib bani aadamkii la hadlo Allah wuxuu ya ayuhal insaanu innaka adugu kaadihun ku kadeedan baa tahay ku shaqo adag ku jira tahay kadxiga waxa la yiraahdaa waa sacyiga iyo amalka adag waa shaqada adag innaka adugu kaadihun baa tahay mid kadeedan oo shaqo adag haya ila rabbika intaad kala kulmayso inta aad ka dhimanayso oo aakhira laga soo saaray oo rabbiga kala kulmayso
kadxiga iyo rafaadka iyo shaqada adag baad ku jiraysaa kadxan kaadixun kadxan yani kadeednaan ama shaqo famulaaqiihi mid la kulmayaa tahay marka yani mid shaqo adag iyo rafaad ku jiraa tahay mid kadeedan baa tahay mid adduunka intuu joogaayey aan nasnayn baa tahay ilaa rabbiga aad kala kulanto shaqada adag iyo kadxigaasaad ku jiraysaa markaasaad la kulmaysaa iyo shaqadu soo shaqaystay buu la kulmayaa abaalkeedii waay ama wuxuu la kulmayaa rabbigii buu la kulmayaa oo damiirka famulaaqiihi in rabbiga loo celiyo iyo in kadxiga loo celiyo labaduna waa mutalaazimaan siduu ibnu sheegayo ibnu kathiir calayhi raxmatullah oo hadduu la yidhaahdo rabbigii buu la kulmayna dee wuxuu la kulmay inuu abaal mariyo waaye haddii la yidhaahdo camalkiisii buu la kulmayna waa un abaalkii waaye waa laba yani wax tafsiiro mutalaazima waaye marka insaanow adduunkan intaad joogtaay dhib iyo kadeed iyo qaxar baad ku jiri waaye shaqo adag waaye adduunkan wax cid ku nasani ma jirto ilaahaygai abuurtay tabaaraka wa tacaala uguma talagelin inay noqoto daar lagu nasto waa daar ciddii joogtaba ay diyaaru tahay shaqo adag iyo rafaad cawaaridaas adduunka maraysa iyo ruuxii inuu shaqo ku jiro camal buu ku jiraa ayb fa amaa man ruuxii marka waad la kulantay waa tagtay adduunkii iyo dhibkiisii iyo rafaadkiisii waa dhaaftay rafaadkaasi adduunka iyo kadeedkaa lagu jiray shaqada adag markii la dhinto ayuu ruuxna ka nasanayaa ruuxna markuu dhinto ayaa shaqo adag u bilaabanaysaa saas daraaddeed baa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam dadku markay dhintaan waa mustariix iyo mustaraaxun minhu midna markuu dhinto dhimashaduuba ku raaxaystaa oo adduunka dhibkii ku hayay iyo rafaadkii adduunyadu kaga nastaa waa muuminka ruuxa wanaagsan waaye midna waa laga nastaa oo markaasuu isaga rafaad baa u bilaabanayaba waa markuu qabriga gala geeridaba intaan naftu ka dhicinba markii lagu soo xaadiro ilaa qabriga markaasuba kadeed iyo dhib cusub bilaabaya taasaa laga warramaya marka fa amaa man ruuxii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa la siiyey waa diiwaankii camalkiisa ku qornaa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey aakhare markii laysa soo saaro waxaa laysu qaybinayaa dawaawiintii riboodyadii dadka laga soo diyaariyay ay ku qornaayeen malaa'igtu soo diyaarisay ayaa laysu qaybinayaa ayb fa amaa man ruuxii uutiya la siiyey kitaabahu diiwaankii camalkiisa ku qornaa biyamiinihi midigta looga dhiibo midigta laga siiyo fasawfa yuxaasabu waa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuu gadoomi oo wuu noqon ilaa ahlihi ehelkiisa xaggiisuuna u gadoomi xisaabtaa fudud marka la xisaabiyo ehelkiisii iyo reerkiisii jannada ayuu xaggooda u gadoomayaa masruuran xaalu yahay mid la farax geliyey calaamadu waxay u tahay marka qiyaamada la yimaado maxsharka la yimaado ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo waa ruux liibaanay waaye marka ruuxaasi xisaabtana lagu adkayn maayo kadibna markii xisaabtaa fudud la mariyo ehelkiisii iyo gurigiisii iyo jannadii iyo meeshii loo diyaariyay buu marka aadaya isagoo aad u faraxsan oo wuxuu ku faraxsan yahay baqdin baa jirtay baqdintii buu ka badbaaday waa midda labaade wax ilaahay wuxuu siiyey tabaaraka wa tacaala lagu farxana waa la siiyey marka isagoo faraxsan buu tegay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran halkaa marka waxaa ka muuqata addoommada qaarna xisaab adag baa la marin doonaa qaarna xisaab fudud baa la marin doonaa waxaa nebiga sal alla alay wasalam sidaa u fasiray xadiidka caaisha radia allahu tacaala canhuma bukhaari soo saaray nebigaa sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ma jiro ruux la xisaabin ilaa waa halaagsamay marba haddii lagula xisaabtamo xisaab lagu qaato halaagsantay buu nebigu yihi sal alla alay wasalam markaasaa waxay tihi rasuulka ilaahayow jacalanii allaahu fidaaka furashadaada ilaahay ha iga dhigee ilaahay sooka qur-aanka ku yidhi ma aha فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أدونا وحاتي روحي لحسابي وأهل أكسمي قرآن كنا وحوليه هدد وحاتي حساب فضل لحساب دونه سيوي ترتام سيوي مركز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يعرضون كاس حساب ما هي وأم بندك أدون كيو عمل كيسي لو سو بندقي كدبنا sidaasi lagu saamaxay oo kadibna jannada aaday wey
لكن وحول من نوقش الحساب هلك من نوقش الحساب هلك روحي حساب تلقو أتكيه أو صدب الله لا حسابته إنه هلاك سمي شك ماله لأنه واحد لقى بحكي كرماها هذه السي رب اللقول الله فقور حسابته هذه وإن ير لقود الاستاجو وحسنات كاجي وناجي يحمان هذه ميزان كلا يسوس صاروا وشيء لقوه يديو لود الاستاجو ما بدبادي كرت تاوي مرك مدو النبي الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب لكن تنوي كد وانتهى تنعرض باليد هذا أدونكو إلهي تبارك وتعالى أدون كيسة مركو دونين إنه محوء هاي وفضحيو أما كوأتكيو أعماشي سيبا الله صوب بندقيا سيبا الله صوب بندقيا أعماشي سال صوب بندقيا وحال ليها تنمصميس 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 أعماشي سي مركو الله صوب بندقيا وحال ليها كعسكتك جند مركو تا حساب تنمحي وابندق وأنا حسابته يسير كامدهم هو هاي آيات كعبر توي فسوف يحاسب ولا حسابين دون حسابا يسيرا أو إن لبك في ميزانك أنت حسناتك سيئاتك ليسوا ميزان ما هي سيف ضد بأعماشي زي أنت الله ضل المرة والله صوب عندك كدبنا حجيبه هذا يا مركا وينقلب مركا وقدوميا إلى أهل كيس حقيس أهل كيس كنضوا حور العينتي خير كي يحيي لود دياري مسرورا حاله من الملة فرح قلي سو هذا فرح صمو مركا تجيه oo aadayga hoygiisii iyo ehelkiisii marka aadaya way macna kaasi waa ki xisaabta fudud la saabiyay oo kitaabkiisana miditay laga sii wa amma man ruuxi uutiya la siiyay kitaabahu kitaabkiisa wara wa diiwaankii amalkiisa ku qornaay waraa dhahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo fasawfa yad'u wuxuu u yeeran doonaa thuburan halaag iyo khasaare hog iyo ba wayasla wuxuu gali doonaa saciira naar huraysa maxay yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fi ahlihi ehelkiisa dhaxdiisa adduunka markuu dadkiisa dhex joogay masruuran mid la farax galiyay buu ahaan jiray adduunku iska faraxsanaa oo muxuu ahaayay cabsi aakhiro iyo xisaab muusan qabin innahu isagu dhanna wuxuu maleeyay adduunka markuu joogay wuxuu maleyn jiray allan yaxura inuusan soo noqonaynin balaa arinku saama ah suu mooday ma aha إن ربه ربكي كان وحوها به إسقى بصيرا مد أركيوها ولا للسعودي ولا لأركي ولا جور هاي يا سين لو سعلني ما بلاش با إلا جور هايو لو أركيو لو دوّس عضاء ما بلاش با سين لو سعلني نوع طيب كان واقعيتي لباد وادتكي هلو نار كها وادتكي قال دي منافقين تي وحي لها الماليوي عصاد ديوي أيجا وحوي marka kitaabkooda la siinayo bidixdana waa laga siin bishimaalihi waa kameelka laga cabiri bidixdana waa looga dhiibi dhabarka gadaashiisana waa laga siinaa bimaana gacanta inta gadaal laga jabiyo oo dhabarka la mariyo ayaa halka diiwaankiisa looga dhiibaya oo akhrisa la leeyahay marka dhabarkiina way tahay bidixdana waa laga siinay tayib waa calaamad in uu khasaaray markaas uu calaalaya oo hoogayo ba ay leeyahay oo uu yeeranaya muxuu halaag iyo khasaaro u yeeranaya mana helayo hadduu xataa 100 goor bariyo toma hal halaaga yiraahdo hoogay baa dhaho ma helahay tiiba ma la helayni macna tayib naar huraysu galaya maxaa yeelay adduunka markuu joogay cabsi muusan qabin murug aakhira muusan qabin diyaar garow ma lahayn nin iska faraxsan adduunkiisa ku xasiloon buu ahaa sidaas way macna baynama dadka muuminiintii adduunka markay joogaan waa baqayaan ehelkooda markay dhex joogaan yani ehelka waxa weey markaad qaraabadaadii iyo dadkaagii iyo ilmaadeerada iyo tolka iyo markaad dhex joogto waa meesha ruuxu aaminka ku noqdo way halka markay joogaan muuminiintu ilaahay bay ka baqaan ruuxa kaleetana yani meeshaas waxa weey yani waxa weey muxuu ahay faraxan loo baahnayn iyo kibir iyo yani wax buu galaya macna waa ka ilaahay muuminiinta ku sheegay inna kunna fi ahlina mushfiqiin markaan dadkanaga dhex joogna waanu baqi jirnay kuwanina markay dadkooda dhex joogaan ayay farax kibir bay faraxsanaan jireen saas weeyaan fasawfa muxuha wa amma man ruuhi uutiya lasiya kitaabahu waraa dhahri dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyay fasawfa yuhasabu fasawfa yad'u wuxuu yeeran doonaa thuburan halak wayasla wuxuuna gali doonaa saciiran naarta saciira naar hurays innahu isagu kaana wuxuu ahaa adduunka markuu joogay
fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa wuxuu ahaa qaraabadiisii ehelkiisa dhexdooda markuu joogo masruuran kulla farax geliyey buu ahaa laga farax geliyo iska faraxsan buu ahayo aakhare iyo murugteedii iyo walbahaarkeeda ayna hayninba innahu isagu danna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inuusan soo noqonaynin yani waxa weye waa dhimanaynaa qabrigaan ku dhammaanaynaa xisaab ma jirto isa soo celin ma jirto saasuu rumaysnaa maba in layska daba imaan doonaba warkiisa uguma jirinba yani jadwalka uguma jira balaa iska dhaafe inaan la soo celinayna arrinku ma ahee ina rabbahu rabbigii wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa isaga basiiran mid arkaya maxaa laga wadaa wuu arkayaa bimacnaa wax weeyaan in la soo celinayo waxaa ku tusaya allah tabaaraka watacaala aragga uu arkayo la socoshada uu la socdo cilmiga uu u leeyahay acmaashuu samaynayo oo yani waxa weye la ilaalinayo malaa'igtan loo diray waxaan laga qorayo kulli waxay ku tusaysaa in la soo celin doono oo yani waxa weye abaalkiisa la marin doono way macna bilaash maaha marka ilaahay inuu arkayo soo celin bay ku tusi way macna falaa uqsimu waan dhaaranaya halkaa hore fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waxaa sugan oo imaam axmed uu soo saaray nebigu sal lla alay waslam salaada dhexdeeda inuu ku ducaysan jiray allaahumma xaasibnii xisaaban yasiiraa waa xadiis sugan waay ilaahow ixisaabi xisaab fudud nebigaa ku ducaysan jiray sida xadiidka caaisha ku sugan nacam falaa uqsimu biاshafaqi wاlleyli wamaa wasaqa wاlqamari ida اtasaqa latarkabunna طabqa can طabq falaa uqsimu waan dhaaran buu alla yidhi bishafaqi cawaweertaan ku dhaaranaya walleyli habeenkii baan ku dhaaran iyo wamaa wasaqa wuxuu kulmiyey oo hoostiisa galay walqamari dayixii baan ku dhaaran idaa goortii ittasaqa uu dhammaystirmo ururo intaasaan ku dhaartay buu alla yidhi latarkabunna bini aadamkiiyo waad fuulaysaan dabaqan xaal can dabaqin oo xaal ka dambeeya xaalado kala dambeeyaad mari doontaan oo fuuli doontaan waa ayib famaa lahum maxaa u sugnaaday marka oo laa yuminuuna xaal aynan rumaynaynin famaa lahum maxaa u sugnaaday laa yuminuuna xaal aynan rumaynaynin arrimuhu markay saa u caddaadeen aayaadku saa u cadyihiin maxay u rumayn laayihiin waidaa goortii quri'a la aqriya calayhim korkooda alqur'aanu qur'aankiina laa yasjuduuna maxay u sujuudi laayihiin maxay u tukan laayihiinoo ilaahay u caabudi laayihiin bal iskaba dhaafe aladiina kuwa kafaruu kufriyey yukadibuuna way beeninayaan waxaa loo sheegay oo dhan ma ogola wallaahu allana aclamu wuxuu ogsoon yahay ama mid u cilmi badan way ama aclamu wuxuu og yahay bimaa shayga yuucuuna ay qalbiga ku qarsanayaan waxay qalbiga ku weelaynayaan oo quluubtooda ku qarsoon oo ku jirana ilaahay waa ogsoon yahay fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree aliimin oo xanuujiya ilaa laakiinse istinaa munqatica waay ilaa laakiinse aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati camalyaalka wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajir baa u sugnaaday hayru mamnuunin oo aan la goynayn ku la goynaya aan ahayn yani waxa weye mana nusqaamayo mana go-ayo ayib alla wuxuu ku dhaartay tabaaraka watacaala shafaqa waxaa la yidhaahdaa cinda akar alculamaai salafan wakhalafan culimmada badankood say qabaan waa cawaweerta yani waxa weye qoraxdu markay dhacdo guduudka ka muuqda jihada ay qoraxdu ka dhacday guduudkaasaa la yidhaahdaa yani guduudkaasaa waxa la yidhaha shafaq akaru salaf iyo mufasiriintu sidaasay qabaan xadiis nebina waa ku soo arooray shafaqu inuu guduudkaas yahay cawaweer bay soomaalidu yidhaahdaan macnaha ayib marka wuxuu ilaahay ugu dhaaranayaa waa aayad cajo badanoo waxaa muuqato meeshaa ka muuqda habeenkii oo soo qaabilay mugdigiisii iyo maalintii oo daba jeedisay oo sii socota waatii aynu soo marnay inuu ilaahay ku dhaartay tabaaraka watacaala habeenkii oo soo qaabilay habeenkii oo daba jeediyey iyo subaxdii soo qaabashay walleyli idaa cascas wasubxi idaa tanafas baan soo marnay hadda waa tii kale waa maalintii oo sii socotoo baxday iyo habeenkii oo soo socda isdaba maray iyagoo isbedelayay guduudkaasi marka maalintii oo sii tagaysa ka muuqda way macnaha shafaq habeenku markuu kulmiyo walleyli habeenkii wamaa wasaqa wuxuu kulmiyey makhluuqaadkii yani wax weeyaan hoostiisaa la gelaya sidii maro oo kalea la huwanaya marka iyagu wixii o dhan buu kulmiyey oo ururinaya ayib waalqamari ida tasaqana waa dayaxa markuu dhammaystirmo
اتساق وحويان بمعنى اجتمع واستوى مركو إكادو أو دميسترمو لأنه وحوي انت هرو دنديحو افتين كيس وايريه markuu 14 gaadho marka dhameystirmaya iftiinkiisu hadana wixii 15 ka dambeeyo dib uu u noqonaya iftiinkiisu hadana waa si yaraanaya marka uu dhameystirmo oo Ilaahay ku dhaaranayo tabaaraka wa taala muqsamu alaykum xuya hadaad bini aadamkii tihiin la tarkabuna tabaqan an tabaq waxaad fuuli doontaan xaalada kala dambeeya hadii laga dhigo la tarkabuna bini aadamkii insaankii hadii laga dhigo waa sidaana waa tafsiir culimo badan ay qabaan أما النبي صلى الله عليه وسلم بالغ هذا يلا تركبنا يعني وحوي النبي محمد واتفوليو حال ذاك اللي قد سن بعد مريسا يعني وحوي تعوديسي يمراحي شيء مرتي يماله يدبكي دولة نمدي يودي وهكذا حدي بني آدم كلا قد يقولنا إنه حال ده يلا تركبنا ابن آدم كيو واحد فوليسان ومريسان طبقا عن طبق حالات كلا قدام بيس ابن آدم ك لقى بالله ومرك الله أبو ريو وعدي بيع منيئة حالات كلو مريا واحد شر وحنده لها هوا حنشر عد هيلب ونقنيا عد كهيلب كابه هدنا وحلا صار يا محو هاي لفيه بالله بحنايا ابن آدم جنين هو أورشيف ودما يسترب ونقنيا نفتا لجلين يا وحالات كله الشجو إلما يرو صابح يا هدنا وكريا وقان جاريا هدنا قد مذوب ونقنيا هدنا أضيب ونقنيا قبري بو قليا ومرحلة واكسي قدبيا وحوتجيا محو قيامتي بوتجيا واكسي قدبيا إلى أو تشنقلو أما النار قلو مراحل كلا قديسان يا حالة كلا قديسان بوسيدا مريا معنا بني آدمك طيب مرحدة أرنتو صاع وعد هاي مركا ما حي الرومين لايهن ما حي ليهن ما حاكو دعي فما لهم لا يؤمنون ما حي ليهن وين الرومينين ما حا كهر تاجن أرنتو إسكعد هاي إني مركا الروميان ويلان ما حاو ديدن markii quraanka lagu akhriyana maxay u sujuudi laayihiin sujuudani bimaana wax weeye maxay u tukan laayihiin ay culimo badan ku fasireen caamatul ulama sida sheekh ibn Taymiyyah leeyahay bimaana wax weeyaan laana yani wax weeye sujuuda markasto quraanka oo dhan marka lagu akhriyo sujuud ma keeno laakiin meelaha qaar kood ba sujuud keento waxa sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu akhriyay suuradan salaad cisha intuu ku akhriyay halkan markuu marayay wayda quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun halka markuu akhriyay nabigu inuu sujuuday baa sugan sallallahu alayhi wasallam sahih al-bukhari ku suganta طيب بل الذين كفروا بل اسكداي الذين كفروا يكذبون ويبينيان inay tukadaan oo rumeeyaan oo aayaadka wax ku qaataan iska badaay way beeninayaan oo way diidayaan allana wuxuu og yahay waxay qulubta ku qarsanayaan oo u qarsoon ilaahay waa ogsoon yahay waana ka xisaabin doona ugu bishaaray cadaab xanuun badan laakiin kuwaasi waxa yani wax way iyagu dhanka kale marka la fiiriyo waa mathaanida quraanka waa almathani quraanku yani dhinacana waxbu ka tusi dhanka kalena wax yani wax way macna kale ka soo horjeeda muuminkii ayuu dhankan ku tusi dhankana wuxuu ku tusaya gaalkii iyo munaafiqi illa alladheena aamanu wa amilus salihati laakin dadka iimaankii amalka saalixa laga helay oo intay rumeeyeen haddana ilaahay ateecay oo sharciga ku dhaqmay kuwaas iyagu ajir bay leeyihiin aan go'aynin oo la goynaynin ajir joogta ah ومحي لم يتعمدوا إلهي يدعو كله عطاء غير مجذوذ وسيسمو أن لقوينين لنا نسقاين مايو لنا قوين مايو شوك توي نعم الله سيليه